sidaas daraaddeed waxaan caddaynaynaa arrimahan soo socda. kow, dadka ganacsatada ah waxaan u sheegaynaa hantidiina duulaan baa lagu yahay ee ka difaacda cadowga. hantidiina inaan lagu qaadan waddooyin aan ahayn kuwa shareecadu idin amartay inaad hantidiina ku bixisaan. can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal jaa'a rajulu ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam faqaala yaa rasuula allah ara'ayta in jaa'a rajulu yuriidu akhda maali qaala falaa tucطihi maalak qaala ara'ayta in qaatalanii qaala qaatilhu qaala ara'ayta in qatalanii qaala fa anta shahiid qaala ara'ayta in qataltuhu qaala huwa fi nnaar rawaahu muslim. abu hurayra wuxuu leeyahay nebigaa nin u yimid wuxuu ku yidhi rasuulka ilahi hadduu u yimaado nin raba maalkayga inuu qaato seen yeela. nebigu wuxuu sala allahu alayh wasalam maalkaad ha iska siin. wuxuu yidhi hadduu ila dagaalamana nebigu wuxuu la dagaalan. hadduu i dilana wuxuu yidhi shahiid baa tahay. haddaan dilana nebigu wuxuu yidhi waa ahlu naar. ninkaasi maxaad u malaynaysaan marka hadduu yahay gaal saliibiya waa min baabi owlaa weeye in lala dagaalo ayuu mudan yahay oo xoolehen aanu ka dhacsanno. qodobka labaad, bangiyada ajnebiga ah ee la sheegay inay murtadiinta u oggolaadeen inay dalkan yimaadaan kuna shaqaystaan waxaannu leennahay xogtiinna waa haynaa iyo waxaad u socotaan. dalkan ha isku soo lugoynina. shilin ummaddan soomaaliyeed ay leedahay ma qaadanaysaan insha allahu. lafihiinna ha ku khamaarina. qodobka saddexaad, bangiyada soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya waxaan leennahay cid idinka yeelaysa ma lahan inaad xogaha dadka muslimiinta ah ee hantidooda idinku aaminay aad gaalada u dhiibtaan adinkoo ku andacoonaya xeerarka caalamiga ah iyo waxaan allah subxaanahu wa tacaala oggolayn. la idinka yeeli maayo inaad dadka muslimiinta ah ee aad hantidooda ku shaqaysataan aad diintooda, naftooda, maalkooda iyo cirdigooda gaalada baylaha uga dhigtaan idinkoo maslaxadiinna gaarkaa fiirsanaya. laba arrimood idinkaa ikhtiyaar u leh inaad ammaanadii la idiin dhiibtay u ilaalisaan ummadda, aadna iltisaamtaan axkaamta shareecada sida aad ballan qaadeen, ama aad ummadda hantideeda u celisaan inta aysan gaaladu afka ku shubannin. wixii hanti ah ee idinku dhumana adinkaa mas-uuliyaddeeda dusha saaranaya. qodobka afaraad, dadka ganacsatada ah waxaan leennahay hantida idiin taalla bangiyadu halis bay ku jirtaa. waxa aad haysataan waa lambarro uun, balse hantidii rasmiga ahayday dad kale gacanta ugu jirtaa. feejignaan muujiya, ukumihiinnana hal salaad ha ku wada ridinina. hanti waa wixii gacantaada kugu jira ama gacan aaminhii kuu hayso. bunuugtina ammaanadoodii way sii yaraanaysaa oo cadowgii ummadda ayaa gacan ku yeeshay. qodobka shanaad, ummadda soomaaliyeed waxaan leennahay weligiin waad noolaan jirteen waadna noolaanaysaan insha allahu tacaala. irsaaqdiidana allah subxaanahu wa tacaala ayaa qoray oo gaalo iyo murtadiin irsaaqda ma bixin karaan mana goyn karaan. difaacda hantidiinna iyo maalkiinna hana u oggolaanina gaalo waddammadoodii dhaqaalo la'aan xumi ku haysato inay hantidiinna boobto si ay dhaqaalaheeda sii hoobanaya ugu soo kabtaan. ugu dambayn waxaan ummadda soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaynaa inaanan ka daari doonin inaan allah subxaana wa tacaala cadowgiisa iyo cadowga islaamka la dagaalanno kana hor tagno dhagar walba oo ummaddeenna loo soo maleegayo, haddii ay ahaan lahayday midda milateri, midda dhaqaale, midda dhaqan iyo midda fikirka intaba. xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka iyo badqabka ummadda muslimka ah, hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dalalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah. waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay gediga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah subxaanahu wa tacaala keliya u sugnaanayso. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilaahi fain intahaw falaa cudwaana ila cala alظaalimiin.
وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير